akhlaaq xirfad sare oo dabiici ah iyo lamalloodiyanimo ayuu ku caanbaxay waagiisii tartamada marshalka Khabib Nurmagomedov dilaagii reer Ruush ee Oktoobar 2020 isaga fariistay tartamada UFC kadib markii aabihiis alle ha u naxariistay Cabdulmanaab Nurmagomedov geeriyooday 29 jeer oo uu tartamay hal marna lagama badin waxaana uu qaatay magaca boqorka caynka la yiraahdo lightweight-ka ee marshalka wuxuuna haatan ku jiraa liiska kuwii abid ugu fiicnaa tartankan ee taariikhda lagu xardhay Khabib ciyaartii ugu caansanayd ee uu abid ka qayb galay waxay ahayd tii dhexmartay isaga iyo Irishka isaguna tartamadan caanka ka ah ee la yiraahdo Conor McGregor waxay ahayd ciyaar kulansatay hanjabaad cunsuriyad diincay iyo islaam nacayb uu dhamaantood la golay yimi Conor McGregor hayeeshee ugu dambeyn afxumooyinkaasi oo dhami qiimo sare oo xanuun leh ayay ugu kaceen tani waxay dhacday wax yar ka hor ciyaarta Khabib iyo Conor waa McGregor iyo ilaaladiisa oo weerar tuuriye ah ku qaaday bas ay la socdeen Khabib iyo saaxiibadiis waxaan leeyahay imow riigada hadaa dagaal doonayso iskeen halka McGregor waxa uu Khabib ugu yeeray mid jaahil ah oo aan khamrada cabin diinta islaamkana wuxuu ku dacayadeeyay caqiido aan ilbax ahayn xitaa waalidka Khabib ayuu si daran u aflagaaday halka Khabib uu kaliya ku gaabsaday jawaabteeda waxaan ku soo bandhigi doonaa riigada dagaalka oo kaliya ugu dambeyn tan ayaa dhacday wareegii afraad ee ciyaarta ayuu Khabib qoorsagaaro ama waxa loo yaqaan submissionka ee uu caanka ku yahay la helay Conor taa oo uu ku hayay ilaa uu iska dhiibay intaas kadib Khabib waxa uu doonay inuu gaarkiisa u garaaco qof walba oo kamid ahaa ilaaladii Conor ee weeraray midaas oo muujisay heerka argudasho ee Khabib uu qorshaystay ninkan iyo kooxdiisa he begged me, please don't kill me, you know. heer wuxuu gaarsiiyay ninkan uu ka baryo inuusan khaarajin intii ay dagaalka ku jireen cid walba waxay habeenka wixii ka dambeeyay Khabib ku ixtiraamtaa qadiyadiisa adag ee ku wajahan ilaalinta diinta suuban ee islaamka ma aha kaliya inuu cidii aflagaadaysa islaamka la dagaalamo ninkani waxa uu sidoo kale fidiyaa dacwadda oo akhlaaqdiisa wanaagsan iyo sida uu uga hadlo toosnaanta diinteena suuban ayaa sabab u noqotay inay dad badan oo kamid ah taageerayaashiisu islaamka jeclaadaan I'm not shy and everybody knows, all my friends, like even they different religion, they know I eat halal, I don't drink. lama xishoodo anigu islaamnimadayda saaxiibo badan ayaan leeyahay oo dhabtii qariya inay muslim yihiin sax ma aha taas cid walba waa ogtahay inaanan khamrada cabin kaliya cuntada xalaasha cuno balse sidaa oo ay tahay xumaan oo muujiyo cidii diin kale haysata marka ay yiraahdaan ina keen tagnay xaflad muusiga kaliya waxaan idhaahdaa ma cabo khamrada sidaa darteed ma aadi karo inta ayaan kaga cududaartaa iyaga It was Sir Alex Ferguson and Alex Ferguson asked me about wine. dhowaan Sir Alex Ferguson ayaa yiri ina la cab khamro balse markiiba ma oran maya anigu ma cabo oo waa xaraan kaliya waxaan idhi waan ku dawaqaa oo haddaan cabo dhamaantiin ayaan idin leynayaa dabadeedna wuu iga daayay isagu xoogaa way adag tahay inaad waagan ahaato islaam diintiisa ku adag balse muhiimadu waa inaad qof wanaagsan ahaato dunidana tusto wanaagga diintaada kaalmaynta dadka ayuu sidoo kale ninkani ka qayb qaataa isagoo dadka kalena ku dhiirigeliya garab istaaga kuwa u baahan We famous, we have money, you know, but we can help people, why not? caan ayaynu nahay lacagna waan haysanaa maxaa diiday inaan dadka caawino waa inaad is-hoosaysiisaa akhlaaq lahaataa aadanahana caawisaa kaalmayntu waa mid muhiim inoo ah xitaa haddii hal cunug oo kaliya ah ay ka farxinayso waayihiisa howlgabnimada ciyaaraha ayuu haatan ku raaxaysanayaa Khabib ha yeeshee taariikh weyn ayuu kala hoyday tartamada martial artska ee dunida